السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسلامتين أصحاب تقييمتي قدر أنت مدن وميل كستو الدنيا كجوجتان وصاحب فيلميسي برامج داينو كغا هادلي جرنا arrimaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa Zoria Vanshi. haddaba Zoria Vanshi waa filin uu director-ka yahay Rohit Shetty, sidoo kalena waxaa qayb ka ah Karan Johar oo aad wada garanaysaan oo ka mid ah directorada ama producerada filimada soo saaray dalkaasi Hindiya kuwada ugu caansan, lehna shirkadda Dharma Productions oo filimo badan oo blockbuster soo saartay, halka Rohit Shetty uu ka mid yahay directorada ugu wanaagsan ee dalkaasi Hindiya markay noqoto aflaanta dhanka actionka. haddaba maadaama filimkan uu ka yahay director Zoria Vanshi Akshay Kumarna uu ka yahay hero ama hogaamiyey filimka, labadan ayaa isku dhac aad u xoogani lagu soo sheegaya maadaama ay yihiin laba qofood oo wada shaqeeya muddooyinkii u dambeeyay iyo muuqaaladii u dambeeyay la duubay filimka Zoria Vanshi. wax wada hadal oo san dhex marnaa arrintaasi dhexdhexaadii waxaa ka oo waanta ku jira sidii dib loogu heshiisiin lahaa Zoria Vanshi directorkeeda iyo jilaageeda Akshay Kumar iyo Rohit Shetty ee Karan Johar. haddaba Zoria Vanshi sidoo kale waxaa qayb ka ah Katrina Kaif, Gulshan Grover. filimkan waxaa la filayaa inuu fulo teatrada dalkaasi Hindiya sanadku markuu yahay 2020 bisha March 2020keeda maalinta Ida ee fuda inuu soo haysa. Akshay Kumar oo ka mid ah aktarada filimaanta iyagu markaasi ka yihiin jilaayaasha lacagaha ugu badan ee kasoo xaroonayay sanadihii u dambeeyay hadda sanadkan ku jirno 2019 labadiisa filim ee ugu dambeysay ee Mission Mangal iyo filimkiisii kale ee lagu magacaabo House of Four. labada filim baa 200 koror ay kor u dhaafeen. producerada iyo directoradu waxay rabaan jilaa filimka uu isagu markaasi jirayo lacaga badan ay kasoo xaroonayaan. business waa lacag, qof walibana waxa uu raadinayaa faa'iido. actorkana waxa uu raadinayaa faa'iido iyo sumcad intaba. haddiise directorka uu keeno sheekooyin markaasi isaga aan qancin, dadka waxay ku qasbaysaa in hadalka la kala gato, shaqada hore u socoto. sidaad ogtihiin baa filimkan waa qandaraas kamana bixi kartid mar haddii aad saxiixdo. waa sida usoo xidhay kastoo aysan suurtagal ahayn waxyaaba tacadiya in jilaaga markaasi loola yimaado oo uusan isaga raalli ka ahayn oo suurtagala filimkaba markaasi inuu aqalo. haddaba taawadayaal intaas ayaynu ku hakinaynaa barnaamijkii. waxaynu dhammaantayo inay kaga tegaynaa inagoo isku duban. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala.